السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الجنرال منير igala socoto waa saaxiibkiin Munir. Soo dhawaada muuqaal cusub, waliid wanaagsan haddii aad u dabadegaysid, haddii kalena subax wanaagsan, maalin wanaagsan. Alxamdulillah, haddiiba aad maanta soo nabad kacday ama aad weli nolosha wanaagsanayso, nimco weyn ayuu Ilaahay ku siiyay, fursad weyn oo nolosha ayaad haysataa. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan rabaa inaan duubo muuqaal muhiim ah oo weliba xilligan hadda la joogo u baahan in laga hadlo. Muuqaalkaas waxaan mawduuc ugu dhigi doonaa sidee ugu helinaa ama ugu gargaarnaa oo garabkiisa u noqonaa rasuulka calayhi salaatu wassalaam. Sidee ugu helinaa nabiga xabiibka suubanaha udgoon nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. Su'aashaas ayaan ugu dhex jawaabi doonaa videogan. Haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saaro. haddii aad ila socon jirtay oo muuqaalka uu kusoo gaaran muuqaalkan like saar. soo dhawaada muuqaalka ayaan horay usii galaynaa. صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول midda koowaad sideen ugu helinaa nabiga sallallahu alayhi wasallam. midda koowaad waa inaan baranaa nolosha iyo taariikh nololeedka nabiga calayhi salatu wassalaam. waa kuma nabi maxamed, muxuu yahay, inaan rumeyno qofka uu yahay, inaan qalbigeena ku sugno, inaan barano oo raadino ama daraasayno taariikhda nabiga ama taariikh nololeedka iyo siirada nabiga calayhi salatu wassalaam. taas waxay kaa saacidaysaa inaad asaga si fiican u barato. صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول kan labaad sideen ugu helinaa nabiga calayhi salatu wassalaam. labo, inaan kitaabka iyo sunnada maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii lagu soo dejiyay inaan barano oon daraasayno ayadana ugu helin karnaa. oo markii aan taariikhdiisa, taariikh nololeedkiisa barano iyo shakhsiyadda nabiga calayhi salatu wassalaam wanaagga uu lahaa aan barano kitaabkii loo soo dhiibay, sunnadiisa, axaadiistiisa, ayadana waxay naga saacidaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan u helino. صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول saddex, inaan sheegiisa badino, xuskiisa badino. dadka haddii aan anaga aqoontii lahaa yeelano oo kitaabka iyo sunnada siiradiisa aan barano oo asxaabtiisii iyo taariikh nololeedka isla soo mareen, nolosha isla soo mareen aan barano oo 23 sano iyo wixii ka horeeyay oo taariikh nololeedkiisa 23 sano ee uu nabiga ahaa sallallahu alayhi wasallam aan barano wixii ay noloshiisa ahayd, wixii uu soo maray. taas waxay naga saacidaysaa inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam u helino. midka saddexaad marka waxa waaye in nabiga calayhi salaatu wassalaam sheegiisa aan badino oo aan ku celcelino saligiisa, aan dadka barno, ugu sheekeeno taariikh nololeedkiisa, nalaga dhex arko. sheega waxaa ka mid ah qofka noloshaada in laga dhex arko qaabkii nabiga sallallahu alayhi wasallam u ahaa. runtii inaad mar walba sheegto adoo nabiga calayhi salaatu wassalaam kaga dayanaya, maxaa yeelay asxaar runta sheegi jiray. saligiisa inaad badiso, saligii hala badi dhahay xaliya afdal salaatu asga tasliim. maxaa lahaa inaad amaanada ku fiican tahay, inaad sida asaga u labisan jiray u labisato. taas dhan macnaha waxay kaa saacidaysaa inaad nabiga sallallahu alayhi wasallam u helisay, oo waxaa ay la mid tahay adoo nabiga sallallahu alayhi wasallam garabkiisa istaagay. laakiin haddaynan intaas sameynin, qur-aankii aan barnin, ayna akhrinaynin, axaadiistii aan barnaynin, siiradiisii, taariikh nololeedkiisa nabiga calayhi salatu wassalaam iyo asxaabtii waxay isla soo mareen, dhalashiisa kasoo bilaaw, markii nabinimada loo soo saaray, hooyadiisa taariikhdii isla soo kasoo martay, dhalashadii markay dhalaysay, mucjizaadkii aragtay, dadkii ku hareereysnaa reer maka iyo akhlaaqiyaadkii kula dhaqmi jiray markii nabinimada loo soo saaray, markii maka lagu dhibi jiray, markuu dacwada la jahraayay, markii madiina usoo hijrooday ka hor Taa'if markuu u hijrooday lagu dhibaatay calayhi afdal salaatu wasga tasliim. waxaas dhan ilaa uu madiina ka imaaday, ilaa fatxu maka, dagaaladii Badr kasoo bilaabo Uxud, ilaa fatxu maka uu ka furto meeshii uu ku dhashay ee laga soo eriyaday. haddaynan baranin nabiga sallallahu alayhi wasallam uma helinin, haddaynan dadka u sheegin oo dhihin warbarta nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaasuu ahaa, rulow ahaa, amaanadu ku fiicnaa, qaraabadu xiriirin jiray, maxaa lahaa dariska iyo dadka ka agdhow ayuu qof wuxuu ahaa u wanaagsan, ehelkiis markuu ku dhex jiro qof wanaagsan ayuu ahaa. xataa muuqaalkiisa aynaan ka sheekeenin nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim, markaas maynaan u helin. macnaha sheegidda waxaan ka wadaa saligiisa in la badiyo iyo taariikh nololeedkiisa in laga sheekeeyo mar walba, asaga le uun nolosheena lagu dabaqo, siduu u labisan jiray,
salaadaha qaabka u tukan jiray ilan waajib waaye kule wax walba uu dhaho nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim in la sameeyo waajib nagu tahay wax walba ku hadlaayeen wax sax oo xaq ah oo waxyi ah oo ilaahay xagiis ka yimid ahayn wama yantiqu can ilhaba in huwa illa waxyi yuuxa taas marka nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim waxay naga saacidaysaa haddii aan saddexdaas sameyno kow inaan taariikh nololeedkiisa iyo shakhsiyadiisa shamaaishiisa waxyaabihii noloshiisa ee u gaarka ahaa ama dadka uu kaga duwana aynaan barnin khayru khalqilah inuu yahay inaan barno kow laba inaan kitaabkii lagu soo dejiyey qur-aanka iyo sunnadiisa aan barno iyo iyo wixii tafsiirka qur-aanka oo kale tafaasiirtiisa inaad ka dababartid tafsiirkiisa loo fasiraayo culimmada aayadaha dhammaan axaadiista axaadiistiisa sal ly slam ee umahatu sitaha bukhaari muslim iyo wixii lixdii kitaab waxaas dhan inaan barno saddexna inaan sheegsheegiisa badino oo saligiisa aan badino oo maxaa la ilmaheena iyo dadkii nagu hareereysan aan nabiga sal slam barno ugu sheekeeno nolosheenana ay ka muuqato sida nabiga sal slam u noolaa oo kale inaan u noolaano oo runtii iyo wixii dhan aan sheegno taas marka waxay naga saacidaysaa inaan nabiga sal slam ama waxay noqonaysaa inaan nabiga sal slam u helinin maxaa yeelay intaas way ku filan tahay calayhi afdal salaatu waska tasliim haddii aan saligiisa badinana mar walba fii qabrihi xayun waaye qabriga ayay ugu tegaysaa saligeena weliba shaksiyan hadda nabi sal slam hadda aan ku saliyo calayhi afdal salaatu waska tasliim nabi sal slam waa loo bandhigaa in haweenka jumcaha saligiisa aan badino intaas marka waxay noqonaysaa inaan nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim aan u helin kuwa nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim dhibaateenaayo oo caynaayo asagoo noo lalacayn jiray hadda asagoo dhintay anaga inaan u helino oon ka hadalno oon ka danqano ka xanuunsano waajibay nagu tahay haddii hal dhowr qofood oo muslimiinta ka mid a u jawaabaan oo jawaab kulul la siiyo dadkaas way ku filan tahay laakiin adiga mar walba waxaa la rabaa nabiga sal slam inaad u helisid ama qof ha caayo ama yuusan caynin nabiga calayhi afdal salaatu waska tasliim adiga noloshaa inay ka dhex muuqataa la rabaa dad kugu hareereysan haddii ilmo aad leedahay haddii arday kugu xiran tahay haddii maxaa la lahaa dhul gaalo ku nooshahay noloshaada in shaksiyaddaada laga dhex arkaa la rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ilaahi subxana watacaala wuxuu dhahay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim marka dabeecadihii nabi sal slam makaarim alakhlaaqdii loo soo diray oo sababta ahayd in adiga laga dhex arkaa la rabaa oo maxaa la lahaa hadhow la dhaho qofkan waa muslim maasha allah yacni dadka kalena markaas adiga saameyn ku yeelatid insha allah muuqaalka halkaan kusoo gabagabeynaa si guud muuqaalka uu iska yara maxaa lahaa saddexdaas qodob kusoo koobay waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad ugu faraxsanahay inaad kamid tihiin asxaabteeda oo daawanaysaan muuqaalkan soo dhawaada mar kale haddii aad muuqaalkan daawatay fadlan like saar haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saaro soo dhawaada